بسم الله الرحمن الرحيم خيارتا نلا سعوتا meel kasta oo dunida ka joogtaan galab wanaagsan ayaan idin leenahay waa 1 August sanadka 2026 timinta barnaamijka faaqidaada caalamka iyo la fagurka diblomaasiyadda barrow show qodobada aan idin kugu haya maanta waxa ka mid noqon doona dawladda Iran ayaa soo bandhigaysa jeel cusub oo diyaarado dagaal ah kuwaasi oo loogu talagalay maalmaha soo socda inay qayb ka noqdaan dagaalada gobolka bariga dhexe ka jira xilli dagaalka uu sii ballaaranayo isla markaana ay ku soo biirayaan dhinacyo cusub haddaba diyaaradahan maxaa laga yaqaanaa maxayse ku tilmaameen ciidamada difaaca cirka ee dawladda Iran si gaar ah ayaan u dul istaagi doonaa arrintan waxaan sidoo kale eegi doonaa dawladda Sacuudi Arabiya iyo nidaamka Israa'iil oo warbixino la xiriira xogaha suurtagalnimada ballaarinta dagaalka Iran la wadaagay madaxweynaha wadanka Mareykanka Sacuudiga waxa uu qaadayaa maalinta ku xigta tilaabooyin suuragal ah oo ku dhaweynaysa in uu si furan u galo dagaalka dawladda Iran war adag ayaa ka soo baxay kooxda Xuutiyiinta iyagoo ku dhawaaqay in warbaahinta reer galbeedku ay la galeen dagaal xoog leh hasaatee iyagu ay doonayaan inay xaqiijiyaan ahdaaf kala duwan oo xoog leh taliska ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Iran ee Khatamul Anbiya la yiraahdana war ayuu soo saaray ku saabsan xaaladaha dagaalka iyo ujeedooyinka dawladdaasi ay damacsan tahay sida mustaqbalka loo soo gabagabayn karo warar ayaa lagu qaaday dalal ay ka mid tahay Kuwait iyadoo wadamadii Carabtana ay afka furteen oo ay si weyn u diidan yihiin dagaalkan hogaamiyaha wadanka Kooriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu ku biiray aragtidii dawladda Ruushka ee la xiriirtay in wadamada gaashaanbuurta NATO ay u diyaar garoobeen dagaal sidaas darteedna isagoo kaashanaya wadankaasi Ruushka ay suuragal tahay abaabulka iyo biyabida dagaal kale oo cusub quudaha nuclearka haddii ay dagaalamaan maxaa laga filan karaa isbedelka weyn ee caalamka ku iman kara ma la gaaray dagaalkii saddexaad ee adduunka iyo bilaabashada weerar nuclear ikhtiyaarta ay nala socotay qodobadaas iyo waliba dhacdooyin kale oo taabanaya arrimaha diblomaasiyadda siyaasadda taxliilinta militariga iyo waliba ujeedooyinka dagaalka halka loo saadaalinayo ayaan idinla wadaagi doonaa haddaba si aad u fahantaan ama aragtidiina aan u aragno barnaamijyada socdana aan qaarkood ugu qaadano bal su-aasha maanta aan idin weydiinayna waxay tahay loolankan cusub ee bilaabanaya goodinta Kim Jong Un iyo Putin iyo keeblayurarka wadamada Ruushka iyo ballaarinta dagaalka bariga dhexe dunida ma waxay u jeesatay dagaalkii saddexaad ee adduunka haddii uu dhacana maxay noqon doontaa nolosha qaaradda Afrika iyo geeskan aynu ku noolnahay soo dhawaada ku bilow magacaada iyo meesha aad joogto kadibna aragtidaada qaybta hoose inoogu qor hilmaamin inaad muuqaalka la garayso si uu u faafo meel dheer u gaaro YouTube-kan aad ka mid noqoto saaxiibada ku xiran aad baad u mahadsan ku horeeya arrinta wadanka Iran dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran oo in muddo dagaal ku jirtay ka badan muddo sanada isla markaana wajahaysay dalal ay horfiiq u yihiin Israa'iil iyo waliba dawladda Mareykanka waxay dhinaca kala wada abuuritaanka tiknoolajiyad dagaal oo casri ah taasoo dunida muujinaysa baaliri waxa ay ku arkaan adkaysiyaha wadanka Iran iyo waliba sida wadankaasi ugu diyaarsan yahay dagaal uu sii galo maalmaha soo socda dawladda Iran ayaa soo bandhigaysa jeel cusub oo diyaarado iswada ah tan oo la leeyahay waxa ay ka awood badan yihiin diyaaradda Shahiid oo maalmihii ugu dambeysaba asaliga kala duwan iyo waliba goobo kala duwan ay ku garaacayeen ciidamada Iiraaniyiintu arrintan ayaa waxay noqotay mid hadda si weyn ay u hadal hayaan wakaaladaha wararka ee adduunka kadib markii ay baahisay wakaalada ku dhow ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi ee Tasniim la yiraahdo wakaalada wararka ee Tasniim ee dawladda Iran ayaa sheegtay in ciidamada Iiraaniyiintu ay isku diyaarinayaan inay soo bandhigaan faahfaahinta iyo awoodda jeel cusub oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xilli ay sii kordhayaan xiisadaha u dhaxeeya Iran iyo dawladda Washington
warkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo warbaahinta Mareykanku ay warisay in Washington iyo Israel ay isu diyaarinayaan weeraro waaweyn oo lagu bartilmaameedsanayo kaabayaasha tamarta ee wadankaasi Iran. sarkaal Mareykan ayaa u sheegay jariirada The Axios in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu si dhab ah uga fiirsanayo in maalmaha soo socda uu mar kale weerar lagu qaado xarumaha tamarta ee Iran si cadaadis loogu saaro Tehran in lagu qasbo inay aqbasho shuruudaha Mareykanka ee wadahadalada. hase yeeshee waxaa la sheegay in uusan weli go'aan kama dambaysa ka gaarin arrimahaasi madaxweynaha wadankaasi Mareykanka. dhinaca kale wargeyska The Wall Street Journal oo soo xiganaya saraakiil Mareykan oo aan magacyadooda la shaacin kuwaas oo sheegay in Trump uu bixiyo amaro lagu diyaarinayo weerar cusub oo looga gol leeyahay in Iran lagu qasbo tanaasul weyn. dhinaca kale xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Scott Bessent ayaa sheegay in Washington ay sii wadi doonto cadaadiska dhaqaalaha iyo tallaabooyinka kale ee ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga. dhinaca kale shaacinta jeelka cusub ee diyaaradaha iswada ayaa loo arkaa fariin muujinaysa in Tehran ay hadda awood u leedahay isbeddello waaweyn inay ku soo siyaadiso gobolkaasi bariga dhexe sida ay hadalka u dhigeen. taliyaha taliska dhexe ee ciidamada wadaagga ah ee dalka Iran ee loo yaqaan Khatamul Anbiya ayaa war uu soo saaray waxa uu sheegay in Mareykanka uu doonayo inuu gobolka ka horiyo dagaal ballaaran laakiin cidii arrintaasi loo mari lahaa aysan ahayn buu yiri dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga. taliyaha taliska dhexe ee Khatamul Anbiya ayaa ku eedeeyay Mareykanka inay si xawli ah uga howlan yihiin horinta dagaal ballaaran oo ka qarxa gobolka bariga dhexe. waxa uu baahiyay telefishinka dowladda Iran in taliyuhu uu sheegay siyaasadda Washington in ay ka dhalatay istiraatiijiyad uu ku tilmaamay mid halis ah oo lagu doonayo in lagu ballaariyo saameynta Mareykanka isla markaana lagu xaqiijiyo awoodda uu sheegay in ay sharci darro tahay. waxa uu sidoo kale ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay diyaar u tahay in ay geysato wax kasta oo suuragal ka dhigi karaya danihiisa isagoo sheegay in hantida iyo kheyraadka dalalka muslimiinta loo adeegsanayo sida gaashaan difaaca oo u noqon lahaa Mareykanka iyo sidii loogu xoojin lahaa awoodda nidaamka Israel oo ay mustaqbalkaan ishuri doonin. taliyaha ayaa ku baaqay in wadamada muslimiintu ee gobolka ay feejignaadaan waxa uu ku tilmaamay ka faa'iideysiga Mareykanka ee kheyraadkooda iyo goobahooda istiraatiijiga. ugu dambeyntiina waxa uu uga digay dal kasta si uu u ogolaado baaliri in uu noqdo gaashaan difaaca dalkaasi Mareykanka loona baahan yahay in ay si weyn diiradda u saaraan xaaladaha kama dambeynta ee mustaqbalka muujinaya in gobolka bariga dhexe uu noqonayo midka ugu weyn ee muhiimadda u leh sidii loo badbaadin lahaa shacabkaasi iyo wadajirka mustaqbalka ee la doonayo in wadamadaasi ku yaala gobolka bariga dhexe ee muslimiinta ay noqdaan kuwa aragti iyo mid leh. dowladda Saudi Arabia waxay u muuqanaysaa markan inay u jihaysanayso ku biirista dagaal ballaaran oo furan oo lala galo wadanka Iran kadib markii la ogaaday in xog xasaasi ah ay dowladdaasi ku wareejisay Washington halka Israelna ay Trump gacanta u galayso xog ka bedelan midka nidaamka Sacuudiga ay Trump u geeyeen. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya go'aan adag kadib markii uu helay laba fariimood oo iska soo horjeeda oo ka kala yimid laba ka mid ah xulafadiisa ugu muhiimsan ee gobolka bariga dhexe. dowladda Saudi Arabia iyo nidaamka Israel ayuu ka helay xogahaasi ku saabsan sida loola tacaalayo dagaalka wadanka Iran. warbaahinta dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Trump uu jimcihii ku hanjabay in uu weerar ku qaadi doono aad u culus dalkaasi Iran iyadoo sidoo kale la sheegay in uu ka fiirsanayo duqeymo ballaaran oo dhamaadka toddobaadkan lagu bartilmaameedsada kaabayaasha ugu muhiimsan ee wadanka Iran. sida uu ku waramay telefishinka caanka ee dhinaca dimuqraadiyiinta u janjeera ee CNN wasiirka difaaca Sacuudiga Amir Khalid bin Salman ayaa booqasho aan horey loo shaacin ku tagay Washington isagoo fariin u diray ka siday dhaxal sugaha wadanka Sacuudiga Mohammed bin Salman
fariintan ayaa waxay ku baaqayseen xiisada la dejiyo dagaalkana la yareeyo iyadoo laga digay si socoshada colaadda inay cawaaqib halisa ku noqon karayso dowladdaasi. dhinaca kale hal maalin ka hor booqashadaasi Trump ayaa aqalka cad ku qaabilay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu sida ay sheegeen saraakiil Israa'iiliyiin waxay muujinayaan shaki weyn oo ku saabsan suurtagalnimada wadahadal diblomaasiyadeed inuu noqon karo mid aan hadda loo baahnayn. dhinaca kale kooxda Xuutiga ee wadanka Yemen ee dagaalada xoogga leh kula jirta dowladda Sacuudiga go'doomisana dekedihii waaweynaa ee wadankaasi isla markaana hortaagan maraakiibta Sacuudiga oo inay ku gooshaan biyaha badda cas marinka Baabilmandab iyo waliba Khaliijka Cadan waxa ay ku dhawaaqeen in dowladaha Sacuudiga iyo qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedku ay baahinayaan xoga aan sax ahayn taas oo wax u dhimaya baa la yiri sumcadda kooxda Xuutiga ayaa si rasmi ah u beenisay wararka sheegaya inay qorsheynayaan inay canshuur ama lacago ka qaadaan marinka ay ku soo rogaan ganacsiga ee ka gudbaya maraakiibta istiraatiijiga ahna ee Baabilmandab. sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters hay'adda Xuutiyiinta u qaabilsan isku duwidda gaadiidka badda ayaa cadaysay in adeega ay ugu yeereen marin ammaan ah uu yahay ikhtiyaar oo gabi ahaanba aan lacag la'aan isla markaana aysan jirin wax lacag oo laga qaadi doono maraakiibta halkaasi gooshaysa. waxay sidoo kale ka digtay shirkadda maraakiibta inaysan lacag ama xog siin cid aan si rasmi ah u matalin hay'addaasi. wararka ay baahiyeen maalmo ka hor kooxdan oo la xiganaya waxay tilmaamayeen in ay hadda adag tahay baa layidhi sida kooxdaasi ay lacagaha ku qaadi lahayd. inta badan warbaahinta Khaliijka oo kuwa Sacuudiga ay ugu horeeyaan ayaa lagu eedeynaya baahinta wararkaasi oo hadda Xuutiyiinta ay banaanka iska dhigeen. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump waxa uu ku hanjabay dagaal cusub iyo weerar xoog leh dood adag ayaa ka taagan xiisada gobolka marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan. xiisada bariga dhexe ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo Mareykanka uu Iiraan ugu digay in weerar hor leh lagu qaadi doono haddii ay sii wado waxa ay ku tilmaameen falal halis ku ah amniga gobolka. dood falanqeyn oo ay ka qayb galeen khubaro ka kala socota Washington iyo Tehran ayaa lagu falanqeeyay cidda mas'uulka ka ah gobolka uu gaaro heerka ugu daran ee hadda uu taagan yahay meel aad u xun. dhinaca Mareykanka waxa ay dood siyaasadda ay ku dhisan beereen xakameyn iyo cabsigelin halka Iiraan ay qasab tahay in ay sii wadaan wada hadallada. dhinaca kale Iiraan ayaa si adag u diiday doodaasi iyagoo ku tilmaamay in indhaha ay ka qarsanayso sababtoo dhabta ah xiisada gobolka. Tehran ayaa waxa ay sheegtay in ay ka gudubtay marxaladii la cabsi gali lahaa isla markaana Mareykanka looga fadhiyo in uu isbedelo waaweyn ka keeno siyaasadda gobolka. ciidamada wadanka Kuwait waxa ay la tacaalayaan duqeymo ka imaanaya wadanka Iiraan iyadoo ciidamada ilaalada kacaanka ee jamhuuriyaddu ay wadankaasi si aan la arag ay u garaaceen maalmihii la soo dhaafay. dalka Kuwait waxa uu ku dhow yahay quwadiisa korontada inuu lumiyo isla markaana biyihii macaanaa la waayo sababo la xiriira bartilmaameedka kaabayaasha dhaqaalaha wadanka Iiraan ay ku hayaan. ciidamada qalabka sida ee dalka boqortooyada Kuwait ayaa ku dhawaaqay in saaka waa bariga ay burburiyeen diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ku tilmaameen kuwa cadow ah kuwaas oo u socday gudaha hawada wadankaasi. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada difaaca qaranka ay si degdeg ah ula tacaaleen dhacdadaasi isla markaana ay ku guuleysteen inay soo ridaan ka hor intaanay soo gaarin diyaaradaha bartilmaameedkooda. ciidanka Kuwait ayaa Iiraan ku eedeeyay inay fulisay weerarka iyagoo sheegay in weerarka uu beegsaday dhowr xarumood oo muhiim ah oo ay ku jirto xarun dowladeed oo ku taalla waqooyiga wadankaasi. sidoo kale waxaa la sheegay in weerarka uu saameeyay gaadiidka rayidka oo ay lahayd shirkadda ka howlgashay jasiiradda Bubiyan halkaas oo burbur hantiyeed uu ka dhashay baa layidhi firarkii qaraxyadii diyaaradaha la baabi'iyey ay sababta u ahaayeen.
gobolka bariga dhexe xiisadiisa waxay u muuqataa in markan ay gashay meel aad u adag. safaaradda dowladda Mareykanka ee Tel Aviv ayaa waxay soo saartay war weyn iyadoo muwaadiniinteeda uga degtay suurtagalnimada dagaal ballaaran kara xilli Israa'iil la qorsheynayo inay dib ugu biirto dagaalka maadaama qorshaha wada jirka oo ay hadda ka shaqeynayaan Tel Aviv iyo Washington uu yahay in dalka Iran si weyn loo garaaco. safaaradda Mareykanka ee Israa'iil ayaa ugu baaqday muwaadiniinta Ameerikaanka ee ku sugan nidaamkaasi iyo guud ahaan gobolka inay u diyaar garoobaan xaalad kasta oo amni isla markaana ay ka fakaraan inay ka baxaan gobolka haddii ay dhacdo xiisad military oo hor leh. digniintan ayaa timi iyadoo ay isi soo tarayaan wararka sheegaya in Mareykanka iyo Israa'iil ay isku diyaarinayaan suurtagalnimada olole military oo cusub oo lagu beegsanayo dowladda Iran. sida warbaahinta Mareykanku ay qorayaan, saraakiil Mareykan ayaa sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka inuu haatan ku jiro tillaabooyinka madambeysa uu doonayo in dhibaatooyin xoogan uu ku qaado iyo dagaalo xoog leh gudaha wadankaasi Iran. xilli xalay goodin xoog leh ka soo baxday wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Ruushka. dhinaca kale maanta dowladda Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku tilmaameen gaashaanbuurta NATO inay u diyaar garoobeen dagaal, sidaas darteed xulafada bariguna ay markan diyaar u yihiin in ay bixiyaan jawaabo kasta oo degdeg ah. quwadaha nuclearka ayaa hadda isku muuqanaya waxaana dagaalada Ukraine iyo Iran ee indhaha caalamka haystay isu bedelayaan dagaalo ka sii ballaaran oo agtaradii dagaaladan gadaal ka abaabulayay ayaa hadda u muuqanaya in ay sarkeen oo ay suuragal tahay dagaalka inay bilowdaan. wadamada gaashaanbuurta NATO haddii ay dagaalkan galaan waa Yurub iyo sidoo kale Turkiga iyo dowladda Mareykanka. haddii ay dagaalkan galaan waxa ay wajahi doonaan xulufo ballaaran oo ay ka mid yihiin Ruushka, dowladda Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale wadanka Shiinaha. dagaaladan ayaa loo arkaa haddii ay dhacaan inay yihiin kuwii saddexaad ee adduunka, iyadoo isweydaarsiga fariimahan culus loo arkayo mid amniga caalamka qatar weyn gelinaya. warbaahinta rasmiga ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ee la yiraahdo KCNA ayaa waxa ay ku eedeysay isbahaysiga NATO inuu dardar gelinayo diyaar garow dagaal kadib go'aan uu ku ballaarinayo isla markaana uu ku casriyeynayo kaabayaashiisa shidaalka sida ay dowladdaasi Pyongyang ay ku dhawaaqeen. wakaaladda wararka dhexe ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in qorshaha NATO uu muujinayo korar ku yimid diyaarinta dagaal iyo xoojinta awoodda weerarka isbahaysiga sida ay ku tilmaameen wararka ay sii daayeen. sida wakaaladdu ay sheegtay, mashruuca cusub waxa uu ka kooban yahay casriyeynta shabakadaha dhuumaha shidaalka ee la dhisay xilligii dagaalkii qabooba oo uu dhirarkoodu gaaraya ilaa iyo 10,000 oo kilomitir. isku xirka shabakadahaasi dalalka cusub ee ku biiray NATO ee waqooyiga iyo bariga iyo waqooyiga Yurub, dhismaha dhuumo shidaal oo cusub, abuurista xarumo cusub oo lagu kaydinayo shidaalka iyo dayactirka iyo casriyeynta xarumaha shidaalka ee hadda jira, sida ay hadalkooda u dhigeen. warbaahinta Kuuriyada Waqooyi waxay intaasi ku dareen in ansixinta mashruucan inkastoo ay jiraan khilaafaad ku saabsan qarashkiisa ay muujinayso in NATO ay mudnaan weyn siinayso dhismaha kayd shidaal oo istiraatiiji ah si loo hubiyo baa layidhi ciidamada isbahaysigu inay awood u yeelan karaan in ay si joogto ah u fuliyaan howlgallada militariga haddii ay dhacdo dagaaladan ama uu dhaco dagaaladan. hadalladan ayaa ka turjumaya mowqifka Kuuriyada Waqooyi xilli xiisadaha u dhaxeeya NATO iyo Ruushku ay weli sare u sii kacayaan, isla markaana ay sii socdaan dadaalada isbahaysiga uu ku xoojinayo difaaciisa bariga Yurub. galab wanaagsan khiyaarta inala socotay. haddii aan intaasi uga gudbo wararka iyo taxliilinta qaybta weydiimaha dadweynaha, haddii aan guda galana sidaad maqlaysaan dowladda Kuuriyada Waqooyi iyo waliba Kim Jong Un waxay u muuqdaan in ay markan muujinayaan diyaar garowga dagaal cusub oo ku soo fool leh gobolka bariga dhexe, halka Iran loo qorsheynayo dagaal kale oo xoog leh. Sacuudiga si furan ayuu doonayaa dagaalkan inuu ugu biiro marka la eego tillaabooyinka uu qaadayo
iyo waliba sida adduunka uu hadda isku bedelayo haddii ay dagaaladan dhacaan waxaa lagu tilmaami karaa in si dhaba loo guda galay dagaalkii saddexaad ee adduunka oo ay wadamada iswajahayaan iyadoo ay gacanta ku hayaan hubka loo yaqaano nuclearka iyo waliba sida nolosha geeska iyo qaaradda Afrika ay noqon karaysana maxaynu ku tilmaami karnaa fadlan magacaada iyo meesha aad joogto ku bilow kadibna aragtidaada qaybta hoose faallada inoogu qor halmaamin inaad muuqaalka la garayso share garayso YouTube kanaad ka mid noqoto saaxiibada ku xiran galab wanaagsan